federaalka waxaad moodaa in waxyaabo badan oo aad moodo inay u baahan yihiin bisayl ama aad moodo maamuladii hore inaan lagu oran jirin in maamulka lagu leeyahay in looga faa'iideysto dawlad dhiska ma yahayn baa muuqanaya haddii ay sidaa ku socdaan waa waxyaabaha ay u muuqato dadka midnimadooda iyo wada jirkooda inay ku keeni karaan dildillac ku keeni karayaan baan dee dhaliilin hadda madaxweynaha hadda la doortay ma dhaliilin oo horeyna waa u soo wada shaqayn haddana dee wuuba cusubya wuxuu qaban lahaaba dhaliil ma aha waxaan sheegayaa waxa weeye waxna waa wax maamulka dhex yaalla waxna waa wax ka yimid federaalka waxaad moodaa in waxyaabo badan oo aad moodo inay u baahan yihiin bisayl ama aad moodo maamuladii hore inaan lagu oran jirin in maamulka lagu leeyahay taana way sheegi karaynaa wax caadi ah laakiin ceebaal madaxweynuhu leeyahay hadda cidina ma sheegin federaalku siday wax u maamuleen sidee kula noqday waxna waa fiican yihiin waxna waa ku jira maxaa ku jira dana badan oo aanu isleenahay in looga faa'iideysto dawlad dhiska ma yahayn baa muuqanaya waxaa muuqanaysa hadda dhaliilaha ka yimid guddiga doorashooyinka oo kale dhaliilaha ugu foosha xun ee magaalada ka jira ama degmadan ka jira yaalla oo aad moodo inay dawladda federaalka iyo dadka deegaanka iska horkeenayaan oo aad moodo guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ku magacaaban in laga dhigay NGO oo dad gaari jeebka ku sitaan inuu u egyahay oo si gaara dadka loo qoranayo waxyaabahaasi waxyaabaha dhaliilaha ku ah dawladda federaalka ah ayay ka mid yihiin waana waxyaabaha loo baahan yahay wax laga qabto haddii ay sidaa ku socdaan waa waxyaabaha ay u muuqato dadka midnimadooda iyo wada jirkooda inay ku keeni karaan dildillac ku keeni karayaan amnigana ay laftiisa ay ku noqon karayaan caqabad ku noqon karayaan in degmadan hadday fool xumaatay degmooyinka kale loo gudbana caqabad ku noqonaysa wey